مدن هدان soo bilaabo safarkaad ku aaday magaalada Copenhagen oo ka qayb gashay shirkii group contact maxaa ka soo baxay ka wasiir ahaana wixii ka soo baxay muqarsantahay runtii shirkaas waxa shir aad faa'iido u leh oo muhiim u ah maxaa la yiraahdaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxyaabo fara badan baa looga hadlay waxa kamid ah road mapkii loo sameeyay dawladda oo laga sugayo sanadkan inta ka dhiman inay ka soo baxdo waxaa laga hadlay dhinaca nabadgelyada laga hadlay security waxaa laga hadlay dhinaca humanitarianka laga hadlay waxaa laga hadlay dhinaca xuquuqda bini'aadamka laga hadlay waxyaabo fara badan aha runtii meeting aad u qiimo badan oo dadka Soomaaliyeed faa'iido u jirto muddadii aan joogay Copenhagen yaa waxa ii fidiyay casuumaad wasaaradda arrimaha gudaha ee wadankan waxaana ila noqotay inaan maxaa la yiraahdaa soo maro oo waxyaabo fara badan oo ku saabsan ama ha noqoto iskaashiga labada wasaaradood ama ha noqoto iskaashiga labada wadan inaan waxyaabo fara badan ka wada hadalno waxaana isleeyahay wuxuu ahaa kulan aad muhiim u ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhiyo waxaan ku warqabnaa in aad la kulantay wasaaradda arrimaha gudaha in la kulantay iyo wasaaradda WFP maxaa la kulantay maxaa la wax muhiim ah aad maad ka soo baxay meesha runtii waxyaabo aad qiimo u leh baa ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha kulankan waxa ka soo baxay in la soo celiyo xiriirkii labada wasaaradood oo la sameeyo maxaa la yiraahdaa agreement la yiraahdaa bilateral oo dawladda maxaa la yiraahdaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya aan cidina u kala dhaxaynin waxyaabihii macaawinaha noqoto ama ha noqoto taakuleen ama tababar ha noqoto aan aydan cid u dhaxaysa oo is jirin ay wada macaamil karaan sidoo kale WFP waa wada kulanay waxyaabaha kulanay waxay ahayd sidii loo ballaarin lahaa macaawinada dadka la gaarsiiyo in la gaarsiiyo gobolada wali aan dadka ka soo barakicinin intii ay soo barakicin ka hor in la gaarsiiyo waxyaabo fara badan baan ka wada hadalnay oo ku saabsan si dadka Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa waxaan isleeyahay waxay ahayd arrin aad muhiim u ah walaal wasiir waxaa jira dadka Soomaaliyeed waxaan ku warqabnaa in ay joogaan ilaa 5,000 oo maxalay barakacayaal oo guur in haysan bishan October waxaa bilaabtay bishii oo roobka loo yaqaan deerta dawladda Talyaaniga ma wadisin in siiyaan teendooyin maadaama Talyaaniga uu ku fiican yahay xagga gurmadka gargaarka degdega ah tii waxyaabo gaar ah specific ah gooni uma weydiisan laakiin waxaan u sheegnay sidaas hadaad u sheegaysid waana ka warqabaan waana u sheegnay inay jirto xilligan hadii roobka aysan imaan in abaaruhu ay hadana gaarayaan gobolada kale ay gaarayaan waana ka wada hadalnay sidii maxaa la yiraahdaa looga hortagi lahaa arrintaas waxaan rajeynayaa inay noqoto mid miro dhal ah haddaan u soo laabano dhinaca Soomaaliya dadweynaha adduunka doonayo ama raba in Soomaaliya wax ka qabtaan ama ay kaalmeeyaan oo hadday maqlaan dhacdooyinkan Soomaaliya ka dhacday haddaba say u arkaan dadkaas runtii sida arrintii shalay maalin dhaweyta ka dhacday xamar ka dhacday waxay ahayd arrin mucjiso ah oo qof kasta oo ama Soomaali ama qof kasta oo damiir loo bini'aadam ah dhaqanisay muslim iyo gaalaba dhaqanisay balse umaleyn maayo inay wax ka bedeli karto image-kii international community ama dadkii saanfalka bixinaya ay u bixinayeen sababtoo ah ma ahayn dhacdadii ugu horeysay inkastoo ay dhacdo aad u naxdin badan u leh oo carruur fara badan ku baaba'day dad fara badan oo masaakiin ah oo cid dambi galeen aan la arkin lagu laayay haddana waxa weeye dadka wax bixinaya ama macaawinin keenay dhiirigelin cusub inay sii geliso iyo dadkii inay wax gaarsiiyaan sii gelisa maahan ismalihi waxbay u dhibi kartaa humanitarianka Saudi adigu waxa tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka adigu joogda kan Talyaaniga u joogo danta Soomaaliya iyo waxqabadka ummadda Soomaaliyeed markii lagu sheegay dhacdooyin oo dhacday dareenkaas oo noqday run ahaantii like everybody oo kaleeto sida dadka ummadda Soomaaliyeed oo kaleeto waxa weeye dareenkayga aad buu kacay ilaa iyo maxaa la yiraahdaa arrin aad naxdin u leh ahayd qof kasta oo damiir leh oo ama Soomaali ah ama aan Soomaali ahayn oo kastaba waxay noqotay arrin aad iyo aad u taabatay anigana shakhsi ahaan aad bi taabatay ama mas'uuliyad ahaan ha noqoto ama Soomaali ahaan ha noqoto ama bini'aadnimo ahaan ha noqotay xasuuqas loo geystay dadka masaakiinta qof kasta ay taabatay kulleyna cidii ka dambeysay adduunkana faa'iido ka helaysa aakhirana waxa ka horeeya waa la iska ogeey mudan meel ay ka dhaceen qarax ka dhacay waa meel ay midqaana ay dawladda ay ku leedahay xafiis ugu leedaan baawur aan la garnin ama la ogeyn qofka wada soo gal karaa meesha
sida runtii ah macnaheedu ma ahan in security-gu uu baaba yahay macnaheedu ma ahan macnaheedu waxa weeye dee qof suicide bam isku xirayo asuu naftiisiiba aan qiimo ugu fadhin waxa weeye mararka qaarkood waa dhici kartaa inuu si aan la ogeyn usoo dhex galo waxay arrintaasu marka lama dhihi karo waa arrin keentay security-ga week ah macnaheedu lama dhihi karo macnaheedu waxa weeye hadda ka hor dhowr fal oo la isku dayo noocaas oo kaleetaha la qabtay oo la joojiyey oo maxaa la yidhahdaa intaan soo gaarin meelihii loogu talagalay la qabtay marka waa dhacdaa marmar caalamkan wadamadan aan joogno oo Yurub iyo Ameerika ka dhacdaa waxyaabahaas oo kaleeto marka lama dhihi karo waa arrin la xiriirta in security-gu uusan tabar lahayn macnaheedu waxa weeye qof naftiisiiba aan ka naxaynin wax kasta suurtagal ka noqonayo mudan ma jiraan wax aman suga ah oo ka hortaga maadaama ay ahayn markii hore uu ka dhacayo Amerikaan oo kale Soomaaliya sida aad la socotid waxaad dareemaysaa in maalmahan sidii horeeto security uu ka sii adag yahay maalinba maalinta ka dambeysana waxa weeye waxaa qorshahaygu hadii Ilaahay in la sii kordhiyo dhacdo kasta oo dhacdana waxaa laga qaadanaya experience ama macluumaad dheeraad ah laga qaadanaya waxaan is leeyahay in loo sii diyaar garoobo arrimahan dhacay waxay keeni karaan in security-ga la sii adkeeyo maahan kulli niyad jab keeni maayaan hadii Ilaahay yiraahdo maadaama maxaa la baabuurta dawladda ee Soomaaliya la ilaaliyo oo amaankooda sugan yahay ma fiicna in la adkeeyo amaanka ardayda wax baranayso iyo meesha bulshada Soomaaliyeed ku badan tahay meeshaani ma ahayn meel hadda school ah oo arday wax loogu dhigay waxay ahayd meel one time la imaanay ardaydii imtixaanaadka laga qaaday baa waxay u imaanayeen natiijadooda inay arkaan sidaasana hadda dadkaas ardaydaas meesha isku timid maahane macnaha security-gu ma ahayn dawladda la ilaaliyo baabuur dawladda la ilaaliyo macnaha security-gu waxa weeye shacabka Soomaaliyeed baa la ilaalinaya ardaydaas oo kale la ilaalinaya dadka ganacsatada la ilaalinaya dadka masaakiinta la ilaalinaya kuwa xiriyaha ku jira la ilaalinaya waxa weeye marka security-gu macnihiisu wuxuu ahaa waxa la waardiinaya dadka shacabka la waardiinaya maahane wax khaas dawladda kaliya oo ah ma ahayn waxaa kaloo maqalnaa midaqana in xiriyaha ay dawladda gacanta ku hayso oo midaqana la kufsado habeenkaas oo meesha joogo dadka kufsadan lagu tilmaamay inay ciidamada dawladda ah haddaba arrintaas oo kale maxaa laga qaban karaa si runtii horta waxaa fiican marka ugu horeysa in la og yahay wararka meesha laga qaadanayo inay sax yihiin waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo la sheegay sida loo sheegay inay sax u ahayn xiriyahaas dadka maxaa la yiraahdaa barakacayaasha degan yihiin waxaa ku dhex yaala saldhigyo police baa ku dhex yaala waxaa ku yaala ciidan kuwa labisan iyo kuwa aan labisnayn baa dhex jooga dhakhaatiir baa dhex joogta maamul iyo nidaam baa ka jira waxa weeye meel sida hadda wax loogu tilmaamayo wax wada dhacan ma wada ahan balse waxa weeye in la sii adkeeyo nabadgelyada la sii adkeeyo maahane dhici mayso in hoos loo socdo waxaan si aaminsanahay warar fara badan oo ku saabsan arrimahaas ku saabsan oo siyaabo kala duwan loo sheegay ama internetyada lagu qoray ama meelo kale lagu sheegay sida loo tilmaamayo in sax u ahayn wadan ugu dambeyntii dadka ku daawanayo ka daawan telefishinka ee caalamiga Universal maxaa u soo jeediyay run ahaantii waxaan rabaa inaan soo jeediyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxyaabaha ka dhacay Muqdisho shalayto maalin wixii ka dhacay qof walba waa u jeedi waan indhihiin ku arkayseen waxa ay ka suurtoobeen waxa way dad sheeganaya inay yihiin ama Soomaali ama dan Soomaaliyeed ka hadlay waxaan u soo jeedinaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan horta marka koowaad in maxaa la yiraahdaa ay u diyaar garoobaan dadka la leynayo oo la baabi'inayo oo la xasuuqayo shacabkoodii way inay u diyaar garoobaan sidii dadkaas loogu hortagi lahaa iyo dhibaatooyinkaas joogtada noqotay sidii loogu hortagi lahaa waxaa kale toon rabaan u sheegay in shacabkaas Soomaaliyeed oo meel walba jooga albaabka dawladdu uu furan yahay oo dawladdu diyaar u tahay inay cid walba iyo qof walba soo dhaweyso tala kasta oo fiican ay qaadato wax kasta oo dan u ah dalka Soomaaliyeed dan u ah shacabka Soomaaliyeed dan u ahna ay diyaar u tahay dawladdu inay dhaqan geliso hadii Ilaahay yiraahdo aad baad mahadsantahay kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya aan la wareystay mudane Cabdi Samad Maxamuud Xasan waana inta